السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن ونكسن داوديال مركز نقد ونكسن كسو دواد وركا مانتا والبدا وقدر كورونا يا وحا كامدا إذا مدة شعبها قد لي مقالة مقدشة لسوق غبطي دي الفالحن أو حالي لو جيستي مقالة مقدشة قبر معلومات كهات متكمدة ديكسية دا كويا لما مقالة سي مقدشة مربوطة كواد مدحوينها الصومالية oo ka qayb gashay shir caalami ah wasaare khayre oo xariga ka jaray taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo dib loo dhisay nabadoon aan ka ahaa gobolka Mudug oo xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo qodobada ay qodobo kala faahfaahsan u diyaar garooba ومالينمو أحد تاريخنا يكون بيجان تهاي تبانك بيش اللبات دوالو كن إيو سقال إتبانك كن سود بعض قلبات أو فافاسن saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa deegaanka Araare ee gobolka Jubbada Hoose ku soo bandhigay hub ay ku soo furteen maleeshiyaadka xarakada Al-Shabaab hubkan ay ciidamadu ku soo furteen howlgaladii ay sameeyeen saacadihii la soo dhaafay waxa sidoo kale jira meydad ay ka carareen kooxdaasi ciidamadu waxay soo bandhigeen meydad dagaalamo ka mid ah shabaabka dagaalkii lagu dilay waxa jira meydadka 25 dagaalamo ay ciidamadu ku soo qaadeen goobihii ay howlgalada ka sameeyeen laakiin wax sawir ah laga ma hayo waa sida hadalku u dhigay afayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa warbaahinta u sheegay in howlgallada sii socon doonaan ciidamada Jubbaland oo taageero ka helaya ciidamada Mareykanka ayaa dharbaaxyo xun ku dhuftay maleeshiyaadka Al-Shabaab waa sida hadalku u dhigay saraakiisha ciidamadu waxay sheegeen in howlgalladii ugu dambeeyay kooxda ka waday ku dhawaad 40 dagaalamo in lagu dilay balse wax war ah hootan ka soo baxay xarakada Al-Shabaab oo xaqiijinaya wararka sheegaya in 25 meydadka iyo qoryaha laga soo furtay ma jiraan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo maanta xariga ka jaray xarunta taliska qaybta guud ee gobolka Banaadir oo dib u dhis ballaaran lagu sameeyay ayaa sheegay in booliska ay lafdhabar u yihiin horumarinta garsoorka iyo dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa wasaare Xasan Cali Khayre ayaa wasaaradda amniga iyo taliska booliska ku amaanay dib u dhiska taliska xarumaha booliska gaar ahaan qaybta guud ee gobolka waxa uu taliska booliska faray in la soo celiyo sharafta booliska iyo in taliska dhexdiisa ay ka bilaabaan dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa si loo soo celiyo kalsoonida shacabka taliska booliska oo ra'iisul wasaaraha u soo bandhigay qorshayaashooda hagaajinta amniga ayaa ballan qaaday soo celinta sumcaddii iyo sharaftii uu caanka ku ahaa booliska Soomaaliyeed iyo in safka hore ay ka galayaan dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa iyo laalaabka si loo helo amniga la isku haleyn karo cadaalad loo siman yahay marwada koowaad ee madaxweynaha Soomaaliya Zainab Cabsi Macallim iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan magaalada Seoul ee caasimadda dalka Koreada Koonfureed ayaa halkaasi kaga qayb galay shirweynaha lagaga hadlayo arrimaha nabadda amniga iyo bini'aadanimada shirweynaha ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay'ad magaceeda la yiraahdo Universal Peace Federation xarunteeduna tahay magaalada Seoul waxaana ka soo qayb galay madax iyo wafuud ka kala socotay 110 wadan tiradoodana kor u dhaafaysa 700 ruux marwada ayaa kulamo gaar ah la yeelatay haweeneyda ugu sareysa hay'adda haweenka martida ah iyo sidoo kale madaxa dalalka qaybta ka ahaa shirweynaha sanadlaha ah iyaga oo ka wada hadlay guud ahaan nabadda dunida iyo si gaar ah arrimaha Soomaaliya dhanka horumarinta iyo garab istaagida haweenka iyo dhallaanka taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Saraakiil Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe ayaa u hambaliyay ciidamada booliska iyo difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo dabaaldega sanad guuradii 54 ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidankaas si oo ahayd 10 bishii 1965 waxa uu hambaliyay damararada saraakiil ku-xigeenada dableyda lifleyda ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya iyo dhammaan
ummadda Soomaaliyeed munaasabada sanad guurida 54 ee ciidanka badda ayuu yiri saraakiishaas Daahir Aadan Cilmi indha qarshe ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee kooxda dalka difaaca xeebaha ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la aasaasay 10 bishii Febraayo 1965 taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay ciidamo ka tirsan booliska oo Muqdisho ku dilay dad shacab ah maalmihii ugu dambeeyay madaxa waaxda canshuuraha ee booliska Jenaraal Cabdullaahi Xasan Bariise ayaa shir jaraa'id ka sheegay in magaalada Muqdisho gacanta ku soo dhigeen askar falal dil ah ka geysatay magaalada Muqdisho iyadoo loo gudbiyay xabsi lana soo taagi doono maxkamadda ciidamada anagoo ku hadlaya magaca taliyaha booliska Soomaaliyeed iyo kan booliska waxaan idin cadeynayaa inaan gacanta ku soo dhignay intii ugu badnayd askar dilalka duwan ka geysatay ayuu yiri Bariise hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadkii hore askar ka tirsan ciidamada booliska ay siyaabo kala duwan ugu dileen Muqdisho dad shacab ah oo ay ku jireen rag darawalo ka ahaa mootooyinka bajaajka shirweynaha 32 ee madaxda African Union ama midowga Afrika ayaa socon doona 10 bishan ilaa iyo 11 bisha sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xoghaynta shirkaasi ajandaha ugu weyn ee ay madaxdu ka wada hadli doonaan ayaa la sheegay in halkudhiga sanadkan looga dhigay qaxootiga dadka soo laabanaya iyo dadka barakacayaasha ah iyo in la helo arrimaha xoogan ee lagu kala xalin karo dadka lagu qasbayo barakacinta ee gudaha qaaradda Afrika shirweynaha 32 ee madaxda midowga Afrika ayaa socon doona bishan 10keeda ilaa 11 bishan dawladaha Afrika waxay halgan adag kula jiraan korarka tirada qaxootiga iyo barakacayaasha ka soo cararaya colaadaha ka aloolsan dalal ka mid ah qaaradda Afrika wadamada ay qaxootiga iyo barakacayaasha culayska ku hayaan waxaa ka mid ah dalalka Soomaaliya Koonfurta Suudaan Afrikada Dhexe Koongada Dimuqraadiga Burundi Eritrea iyo Mali iyo waliba wadanka Kenya hay'adaha qaramada midoobay uga qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR waxay sheegtay in 30 milyan oo Afrikaan ah u baahan yihiin in loo gargaaro kuwaasi oo badankood ah qaxooti iyo barakacayaal tiradaasi waxaa ka mid ah 7.5 milyan oo qaxooti ah 630,000 oo magangeliyadoon ah 1 milyan oo ah dad aan dal lahayn iyo 500,000 oo ah qaxooti dib ugu laabtay dalalkooda inka badan 18 milyan oo barakacayaal ah ayaa lagu qasbay inay deegaanadooda ka cararaan balse aanu awoodi karin inay ka soo hayaamaan dalalkooda dalka Soomaaliya waxaa la sheegay inay jiraan 2.7 milyan oo barakacayaal ah si kastaba haatee madaxda dawladaha Afrika ayaa maanta shirkooda caadiga ah ee 32 u furmaya ayaa la filayaa inay xal u helaan dhibaatada qaxootiga iyo barakacayaasha ku nool qaaradda Afrika koox hubaysan ayaa xalay fiidkii waqooyiga magaalada Gaalkacyo ku dilay nin nabadoon ahaa kaasoo si weyn looga yaqaan deegaanada Puntland nabadoonka la dilay oo lagu magacaabi jiray Cabdiqani Maxamed Cabdi Baale ayaa lagu dhuftay dhowr xabadood xilli uu ku soo baxay masjid uu ku soo tukaday salaadii cishaha isagoo ku sii jeeday hoyga uu ka degan yahay magaaladaasi rasaasta lagu dilay nabadoon Baale waxaa sidoo kale dhaawac uu ku soo gaaray wiil uu dhalay marxuumka oo xilligaasi la socday kaasoo xaaladiisa caafimaad lagu dabiibayo isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo ciidamada ammaanka oo daqiiqado kadib tagay halka uu dilka ka dhacay ayaa sameeyay howlgal baaritaano inkastoo aan la soo sheegin inay jiraan dad lagu soo qabtay howlgalka waxaana markii dambe furmay isu socodka gaadiidka iyo ganacsiga hareeraha wadada uu dilka ka dhacay amniga guud ee magaalada Gaalkacyo ayaa mudooyinkii u dambeeyay ahayd mid wanaagsan wixii ka dambeeyay markii howlgallo ay sameeyeen ciidamada isku dhafka ahaa ee ka kala socda maamulada Puntland iyo Galmudug faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dab xoogan oo saaka ka kacay xirro barakac oo ku taal waaxda kuwaad ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir dabka ayaa la sheegay in uu qabsaday guryo cooshado ka samaysan oo ku yaal kaamkaasi khasaaraha hantiyadeed ayaa lagu soo warmayaa in uu ka dhashay dabkan walow aan la xaqiijin inta uu la eg yahay ma cadda ilaa iyo hadda waxa dhaliyay dabkaas balse waxaa lagu guuleystay in la damiyo
inta ayaan ku soo gabagabeynayna warbixida dalka iyo daafaca caalamka naga soo gaaray antan warkan war lamid aan ku mudan waxa idin kaga tagayna sida ay nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh